السلام عليكم. هدي aad ku cusub tahay channelkan Diyaarama Lacabta fadlan subscribe saar la socod barnaamijyada wiikiiba hal mar hooyo iyo dhalaan waad ku mahadsantahay baan leenahay Nuura su'aashadna soo weydiisay waxaan leenahay xaaladani wuu ku dhacdaa hooyooyinka qaar mararka qaar way ku dhacdaa iyadoon uur lahayn hooyooyinku way dareemaan inay uur leeyihiin sababtuna waxa weeyaan hooyadani horta number 1 waxay waayeysaa caadadeedii maadaama hooyadu weyda dhiigeedii caadada ama xaydkeediina waxay si toos ah u aaminaysaa way dhici kartaa inay aaminto inay uur leedahay number 2 hooyadani waxay dareemaysaa calaamadihii uurka haddaba waxa isweydiin mudan haddaanay hooyadani uurba lahayn sidee ayay u dhacaysaa inay aragto hooyadani calaamadihii uurka waxay ku dhici kartaa 4 siyaabood ayay ku dhici kartaa waxay ku dhici kartaa in number 1 inay jirto hooyadani inay joogto xilligii ay menopause wax la dhaho ay ku jirto menopause markaan leenahay waxa weeyaan hooyada oo caadadeedii ka guurto oo gaadhay da'dii ay caadadu kaga guuri lahayd oo hooyadina markaa rajaynaysa inay uur yeelan doonto calashan ay dhalayso ay rajaynayso taas way ku dhici kartaa oo hooyada ka caadadii meeshii ka baxdo lambar 2 inay jiraan xanuuno maskaxda saameyn ku yeesha lambar 3 inay jiraan wax loo yaqaan chemical change oo nervous system-yada saameyn ku yeesha kuwaas oo ka qayb qaata calaamadihii uurka inay hooyadu isku aragto lambar 7 hooyadan jiraan wax loo yaqaan endocrine system-mada oo soo daaya hormoonadaas oo ka qayb qaata inay isku bedelaan inay qaab ahaan hooyadu ay isbedesho jir ahaan sida naasihii oo kale ay bararaan oo kale 4taas siyaabood ayaa loo nusbeeyaa waxa loo yaqaan false pregnancy uurka aan jirin inay hooyadu aaminto uur aan jirin kuwaas ayaa loo aaneeyaa haddaba xaaladani way dhacdaa marar badanna hooyooyin badan bay ku dhacdaa hooyooyinkana xaalado kala duwan ayay ku soo martaa xaaladani hooyooyinka qaar ayaa marba yidhaahdaa ilmaha iga soo dhacay hooyooyinka marxalado badan bay ku soo martaa haddaba hadday arrintani hooyadan ku dhacday maxaan kula talinaynaa hooyadan number 1 waxaan kula talinaynaa horta waa inay dhakhtarkii u tagtay uu ka qaado ultrasound ama computer hooyada waa in dhiigag ay iska qaado hooyadu waa inay hesho talo badan oo ka imanaysa xagga doctorka hooyada markaa waa in loo xaqiijiyaa hadday ku jirto xilligii uu dhiiggii caadadu ka guuraysay oo ay gelaysay xilligii loo yaqaanay menopause-ka ama sunagoyska waa in hooyadan loo xaqiijiyo hadday jiraan xanuuno hooyadan ka kaxeeyay caadadii sida infectionkii oo kale ee xanuunada ku dhaca reproductive system-ka waa in hooyadan laga daaweeyo si loogu soo celiyo ugu soo noqoto caadadeedii ay meesha hooyada uga baxdo inay u aamintay inay uur leedahay taasi waa lambar 3 hooyadani waa in hooyadan hadduu hooyadan caadadeeda khalkhal ku yimi waa in hooyadan caadadeedii loo saxo waa sababahay hooyada lagaga saari karo uurkan aan jirin ay aamintay meesha sidaas ayaan hooyo Nuuro kula talinaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi